waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa daalacan news channel. daawadayaal meel kastaad joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. daawadayaal waxa aan idiin bilaabaynaa qeybta koowaad ee sheekadii maya meherkan, taasi oo aan rajeynayno inaad aad iyo aad u xiisi doontaan. daawadayaal aan idiin bilaabno qeybta koowaad ee sheekadaasi. waa xilli fiid ah. magan waxau ku ninsanayay guriga saaxiibkiisa daahir oo ku yaala xaafadda Oktoobar ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. qolka fadhiga waxaa kula sugnayd xaaska saaxiibkiisa ee Suleeqa iyo gabar kaloo deriska ah. waxayna daawanayeen filim hindi ah oo maalmahaas aad loogu xiiseynayay Muqdisho. Suleeqa waxay isbartay magan iyo saaxiibteeda Duniya oo aan hore isku aqoon, inkastoo ay dhowr jeer ku kulmeen qolka fadhiga. in cabaarah ayaa sheeko iyo filim daawasho la isku dhinac waday. waxayna Suleeqa intay fadhigii ka kacday ku tiri, raaliga noqda, jikada ayaa shaqo ii taal ee sii sheekaysta, yaa la iska dhigin dad marti ah. magan kuma cusbeen muuqaalka Duniya oo dhowr jeer kula kulmay xaafadda saaxiibkiis, waana ogaa inay ahayd gabar xishood badan oo aan hadal badnayn. waxa uu ka fikiray halka uu Duniya uga bilaabi lahaa sheekada. waxa uu ku dhiiraday inuu wada sheekaysiga isaga bilaaba. waxayna u wada sheekaysteen sidan: magan, abaayo, filimka ayaad ku mashquushay ee ii sheeg magaca filimka oo aan dhex kala soo qabsaday, inkastoo aanan isku fiicnayn filimada hindida. Duniya oo aan malaha jeclayn inay sheekada la jaanqaado ayaa tiri, walaal raali noqo, dhammaadka filimka ayaa magaciisa lasoo bandhigi doonaa ee aynu dhammaysano daawashada. magan intuu madaxa ruuxay ayuu yiri, waa sax, wuxuuna hankiyey hadalkii ilaa filimka uu ka dhammaaday. waxa uu isha ku dhuftay magaca filimka, wuuna fahmay dulucda filimka, laakiinse isagoo qabaarmug iska dhigaya ayuu ku yiri, Duniya, hadda fursad muu haysaa inaad ii sharaxdo magaca filimka iyo nuxurka sheekada filimka. Duniya oo xisheynaysa ayaa waxay hadalka ku bilowday sidan: haa, filimku waxuu xambaarsan yahay qiso jecel oo cajiib ah, waana la socda xalqa kasta oo ka mid ah musalsalkan. magan oo aada ugu dhaga taagay hadalkeeda waxa uu sii weydiiyey hadal u muuqday yoolbaar, wuxuuna yiri, Duniya, markale barasho wanaagsan. maxaafadan baad degan tahay mise xaafad kale ayaad ka timid oo qariib ayaad tahay? waxay hadal farmuuq la socdo ugu tilmaamtay inay degan tahay guriga gajaalka cagaaran ee kasoo horjeeda guriga ay haatan fadhiyaan. intuu madaxa ruuxay ayuu yiri, gartay, maxaas baa tahay mise intay dhoola cadeysay ayay ku jawaabtay, walaal, maxaan kula ekaaday, weli ma gaarin inaan noqdo xaas. magan oo xaalad dejinay ayaa yiri, inaad gabar 17 jir qiyaastii tahay foolkaaga ayay ka muuqataa, laakiinse waxaa shaki geliyey deganaantada sida maro raaliya oo kala. intaysan jawaab bixinin waxaa qolka fadhiga soo gashay Suleeqa. miiska ayay saartay tarmuus iyo koobab. waxay dib u laabatay jikada. mar kale ayay haddana soo laabatay. waxay keentay saxan uu ka buuxo xalwad iyo macmacaan kale. magan ayaa la soo booday, waa maxay xafladan? ma la soo hosgelinayaa? waxaan dhihi lahaa aroos wacan. Suleeqa intay qosashay ayay tiri, waa xafladii Duniya, kuu sheegin miyaa? magan waxa uu sii ambaqaaday kaftankii, wuxuuna isagoo jilaacay Duniya yiri, maxaad ii tiri? gabar gashaanti ah ayaan ahay, ileen waxaad ahayd marwo la qaba. Suleeqa ayaa kaftankii sii shiday, waxayna tiri, oo miyaysan kuu sheegin magaca xaajigeeda? magan oo malaha kafta ku arkay mid dhab ah ayaa yiri, xaajigeeda waa kuma? ma daahir saaxiibkiis mise qof kale? Duniya oo iyada xishood darteed qosolka isku celinaysa ayaa mar qura afka furtay kuna tiri, Suleeqa, ii sheeg magaca xaajigaaga si uu magan u qarco. Suleeqa ayaa ku celisay, Duniya, ma u sheegaa magaca xaajigaaga? intay Duniya haa tiri ayay Suleeqa ku dhawaaqday in seega Duniya lagu magacaabo magan. mar qura ayaa sawaxan iyo sacab laysku daray. kaftankii baana sii macaaday, balse qolka waxaa sikadiis ah ku soo galay daahir oo ay Suleequ dhaxdo. intuu bariiday ayuu fadhiga salka la helay, wuxuuna qabsaday dhalo sharaaba iyo cad xalwo ah. wuxuuna yiri, xafladina maxay ka micno tahay?
farxaddan yay qusaysay. Suleeqa ayaa la soo bootay. Magan iyo Duniya ayaa xafladan lagu maamuusayaa isbarashadooda. waxaan u rajaynayaa inay qoys cusub yagaleelaan mustaqbalka dhow. Daahir intuu Duniya eegay ayuu ku yiri, Magan iyo Suleeqa way kugu goobteen, anigaa kula safan ee u sheeg inaadan weli gaarin da'da guurka. Duniya intay saxbisay ayay ku kaftantay, hal la gaaro waqtiga xafladeeda, mana ogi qofka aan iscalfan doona. Magan ayaa kusii kaftamay, taasi waa sax, anigu calafkayga ayaan sugayaa, ma ogi gabadha aan guursan doona, laga yaabay inaan adiga Duniyoy iscalfano. Lamaanihii martida loo ahaa ee Daahir iyo Suleeqa waxay hal mar wada yiraahdeen, soo dedejiya, waan ku farxi lahayn inaad ku soo biirtaan bahda xasiliyada ah. Magan oo fal u muuqday jilin jecel, waxa uu Duniyo u taagay buskut u samaysan sida wadnaha oo kale. Inta ay ku gudoontay ayay iska aamustay. waxa uu u sii raaciyay dhalo sharaab ah wayna ka gudoontay. Suleeqa waxay u sacbisay hadiyadaha la isgudoonsiiyey, wuxuuna xaajigeeda sii raaciyay, gurigeena wuxuu noqon doonaa mid sabab u noqda jacaylka mustaqbalkiina ee wada abuura geedkii jacaylka si aad u harsataan mustaqbalka. daawadayaal, waxaan intaas kaga gudbaynaa qaybta koowaad ee shakadii maya meherkan. waa inuu toddobaadka dambe iyo qaybta labaad insha allah. waana ku mahadsantihiin daawashadiina. waxaana naga xasuustaa si aad ula socotaan sheekadaas iyo dhacdooyin kale ee aynu soo tabino, fadlan waxaad saartaa subscribe si aysan ku dhaafin sheekooyinkii dhacdooyin kale ee aad ka daalacan doonto channelkan Daalacan News Channel. waana mahadsantihiin 100%.